dhawaada wararka Coop Media. Coop Media waxay idiin soo daynaysaa wararkii ugu dambeeyay ee dunida. Aan ku bilownay dalka Djibouti oo ay beryahan dambe ishayeen shirkadda DP World ee Imaaraadka laga leeyahay, ashkatana iskula jireen maxkamadda Hague kadib markii ay dowladda Djibouti ka baxday heshiiskii dhex yaalay ee ahaa ay kaga kiraysay dekedda Djibouti, taasoo ay ka baxday Djibouti kadib markii DP World kiraysatay dekedda Berbera ee Somaliland, iyadoo ka xumaatay Djibouti ayay kala noqotay dekeddii ay ka kiraysay kalena wareegtay. DP World waxa ay bilowday ashkato oo ka bilowday maxkamadda caalamiga ee Hague, waxaana loo xukumay in ay heshiiskii dib ay u fuliso Djibouti oo ay mar labaad dib ugu noqoto una cusboonaysiiso heshiiskii, haddii kalena ay bixiso magdhow wixii ka galay iyo wixii ay khasaartay shirkadda DP World. Dalka Djiboutina wuxuu ka xumaaday dhisitaanka ama heshiiska ay la gashay dowladda Somaliland shirkadda DP World kuna dhisatay dekedda Djibouti oo ay kiraysatay muddo 30 sannadood ah, iyadoo ay dowladda Djibouti daneynaysay waxyaabaha uga soo dega Itoobiya, hadda kadibna ay Somaliland uga soo degi doonaan Itoobiya. Somaliland oo ah halka ugu dhow ee ugu istiraatiijisan ay Itoobiya wax kala soo degi karto, iyadoo Itoobiya heshiiskana ka qayb oo ay ka tahay 3 geesood. Wararka kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Turkiga oo hanjabaad u soo diray janankii ciidanka ee diiday xabad joojinta Liibiya, Mr. Haftar lagu magacaabo Haftar, janankaasoo ay hayaan dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya. Waxaana uu madaxweynaha Turkigu ugu soo hanjabay in haddii uu hirgelin waayo heshiiskaas uu burburin doono dalkana ka sifayn doono isaga iyo ciidamadiisaba. Waxaa kaloo ka mid ah wararkaan idiin haynaya caalamka, madaxweynaha Mareykanka oo xilka qaadis maanta lagu samayn doono, iyadoo loo qaadi doono madaxweyne Mareykanka cod lagaga xayuuminayo xilka qaadistiisa. Waxaana lasoo bandhigayaa waxyaabihii uu galay intii uu xilka dalka ka hayay, taasoo lagu eedeynayo waxyaabo badan oo khalada, sida janankii ciidanka ee Iiraan uu dilay kuna eedeeyay argagixiso inuu ahaa, iyadoo ay caddeeyeen dimuqraadigu inuu ahaa mid la dagaalama argagixisada, hadda aana loo baahnayn in faragelin military lagu sameeyo dalka Iiraan. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabo musuqmaasuqu galay Ukraine oo kale iyo meelo kale oo ka baxsan dalka Mareykanka.